diyaaradda ku burburtay gegida diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne oo ahayd nuuca qaada xamuulka waxay ka soo duushay dalka Jabuuti waxaana saarnaa deeq raashin oo ay dawladda Jabuuti ay ugu tala gashay dadkii ay saameeyeen fatahaadihii dhawaan ka dhacay magaalada beledweyne. shilka diyaaradeed markii uu dhacay waxa la sameeyay isku day aan sidaa u buurnayn oo la doonayay in lagu badbaadiyo diyaaradda iyo gargaarkii saarnaa wala way noqdeen kuwa lagu guuleysan oo waxa guud ahaanba halka ku burburtay diyaaradda iyo raashinkii saarnaa inkastoo lagu guuleystay badbaadinta bayloodkii diyaaradda waday labadii caawiye ee la socday. taliyaha ciidamada booliska garoonka diyaaradaha beledweyne laba xidigle Axmed Cismaan Cali wuxuu goobjoog u ahaa shilka diyaaradeed waxaana uu sharaxayaa sida uu dhacay waxa sababay burburka diyaaradda. waxa ka soo cagdaytay diyaarad u siday macaawina degmada beledweyne waxay ka soo kacday Jabuuti diyaaraddan waxa laga lahaa Nairobi waxay ku soo cagdaytay degmada beledweyne 6 saac ay soo cagdaytay markay cagdaytay waxa u baxay caga u qarxay saas ay ku gadoontay 4 qof 3 qof oo saaran waa ka soo badbaadinay si nabadgelyo ayada iyo wixii saaray iyo raashinka macaawina ayaa burburay waxa macaawina saaran waxa 8 shilka diyaaradda sidii deeqda raashinka ay ku burburtay garoonka diyaaradaha beledweyne kadib waxa garoonka ugaas khaliif gaaray saraakiisha ciidamada AMISOM kuwa dawladda iyo maamulka gobolka Hiiraan waxayna saraakiisha AMISOM ay sheegeen inay baarayaan shilka diyaaradeed iyo waxa sababay. baaritaan ayaa la sameyn doonaa baaritaankaas caddeyn doona sababta shilka keenay. diyaaraddii labaad ee daba socotay markaas waxaan u gudbinay Muqdisho ku shilka dhacay ciidamadii AMISOM iyo ciidanka booliska waxay isku dayeen inay badbaadiyaan diyaaradda dadkii saarnaa oo ahaa 3 qof oo ah bayloodada diyaaradda. daaqadihii way furmi waayeen waxay jibiyeen muraayadii hore sida aragtaanba muraayadii hore bayloodka oo diyaaradda ka hagayay ayaa la jibiyay halkaas laga soo saaray. dhaawacyo yaryar way qabay gaareen dhaawacyo fudud ah oo jiiditaankii iyo muraayadihii wixii gargaareen waa la soo badbaadiyay. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan oo guriyaasha kula hadla halkii ku burburtay diyaaradda waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in garoonka diyaaradaha beledweyne uusan lahayn wax gaadiid dabdamis ah oo garoonka yaala taasina mas'uuliyadeeda ay leeyihiin ciidamada AMISOM ee degan garoonka iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya. la waayo dabdamis lagu damiyo diyaaradda maanta lagu badbaadiyo waa arrin naxdin la waay oo halkaana uu ku yaalo xaruntii UN-ta ee gobolada dhexe ugu weyn ama koonfurta Soomaaliya la dhigi karo inay halka ku taalo lana waayo gaari dabdamis ee diyaaradda lagu damiyo waa wax aad looga naxano wax aad looga naxawaay mar kale sababtu tahay in kaamboonka UN-ta inta leeg halka ku yaalo hal gaari oo dabdamis la waayo haddii maanta gaari diyaaraddaas rakaab ahaa lahayd ee 100 qofood saarnaaleed ka warrama 100 qof saasi u qarxay hadda raashinku u qarxayo war meeshan xaalad binaadinimo ka jirta waxaan leenahay dawladda Soomaaliya waxa meesha ka dhacaya mas'uul bay ka tahay waxaan leenahay loo soo gurmado